mida waa aimadii kutubta qortay nin baa beri kitaab tibiga ka sheekeeya tibiga tibu nabawigan ma aha tibigan kale soo meydaan arag waxa ragga qaar baa yiraahdaa qolo kastiba midgaanay leedahay midgaanada culimada ma taqaanin bay yiraahdeen iyo gabooyaha culimada waa kuwa tibiga ka shaqeeyay yiraahdeen kolka tibigu ma aha tibiga nabawiga ah tibiga nabawiga ama aha waa tibigan kale dumarku ku xeersanayay soo meydaan arag nin baa oranaya waxbaan dibiyayaayo cidda ka agdho dhaw dhani waa dumarun meesha dumarba ka waay maysidba cidda u imanaysa soo galaysa baxaysa la daweynaya ee joogta ee waxa way waa dumarun wax marka qaar baad naxaysa ay soranaysa war meeshu de dadku rag iyo dumarba waa la xanuunsanayay maxaa dhacay talo maxaa meesha dumarku u keenay way dhacdaa runtii dibiga nabawiga de diinteenaba inagula talisay hadaad quraanka isku daweynayso hadaad cashaabta diintu inoo sheegtay aad isku daweynayso diintaaba ku sheegtay oo taasi way fiican tahay laakiin waxyaabo badan oo kale حتى شيخ القرآن كوكو أخريا علماء ما أقول إنه هاس أخريا هاس ما له أقول ياي قف مريض مركل لقوه كان هاس وآخري تو كده شيخ محمد أخريسي ما له باريسي تو ده ورمقشي واحد أخريسي الله قم مقلة مقشي اللي واحد لو بيجي قف كان مسلم كيه قلبي يسأل إلى عليا هذا دعاء أخريسي هذا القرآن أخريسي قف كان مقشي واحد أخريسي كل واحد ويان هذا واحد يا بدن ورنتي تشرا أي تشرا أو ده الرماء قاركودنا أي زي حنين به يدعدوينka ka dhacay waa la og yahay waxaynu uga jeednaa marka culimadeena waaweyn ee kutubta qortay mid kamid ah ayaa kutubta dibiga ah habeen masaajidka soo galiyay ay gurigiisii soo galiyay gurigiisii markuu soo galiyay salaadii buu iman kari waayay waxaan ogaaday buu mushkiladaasi inay tahay kitaabka guriga yaala iga qaada buu yiri kanay wax si ka yihiin iga qaada waa culimadii waaweyn ee kutubta qoraysay weeyii waayo waxyaabo badan oo de qaar baa hatta marka qaar كيفياتك وحيابها أي قرآن سحر عادية أدورنا سوا سحر عادية قاربا وح أي قرآن فال عادية أدورنا سوا فال قاربا بلايا اللي جدوا جاي الله جو قري وإنك الشيء كريم بقى إذا كان أفقفك إنه لقى شيء